waa axad 22 bisha December sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena Saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay isku wadayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo waliba doorasho qof iyo cod ah. gacanna doorashadan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa gacanta kalena argagixisadaan ku hadirayno ma hakinayno ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan. waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso oo siyaabo kala duwan uga falceliyay hadalkii madaxweynaha Puntland uu shalay ku dhawaaqay ee ahaa in Puntland ay samaysanayso lacago u gaar ah. hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Deni oo ahaa Puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadoo ay leedahay waa soo dhaweynayaa hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowladda. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin islaamiyiinta xagjirka ah ayaa in ka badan 20 ruux ku dilay weeraro xiriir ah oo ka dhacay tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Moti ee bartamaha Mali, sida ay sheegeen ilo wareedyo maxalli ah. kooxdan oo aan heybtooda la aqoonsan ayaa weerar ay ku qaadeen shalay waxay ku gubeen ilaa 6 tuulo oo ka tirsan deegaanka Bandiagara. ilo wareedyada magacooda qariya ayaana sidaasi xalay sheegay. mid ka mid ah ilo wareedka ayaa sheegay in kooxaha dilka geystay ay tiro badan oo mootooyin ah wateen isla markaana ay weerar ku qaadeen tuulooyinka halkaasoo ay ku dileen qof kasta oo ku sugnaa, waxayna burburiyeen oo ay dab qabadsiiyeen wax walba oo aagaasi ku yaalla oo guryihii dadka ay deganaayeen ay ku jiraan. ma jirin wax wara oo ka soo baxay taliska militariga Mali ee afgembiga xukunka ku qabsaday. dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Mali ayaa tan iyo sanadkii 2012 dagaal kula jira kooxaha hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida, Daacish kuwaasoo asal ahaan ka soo jeeda waqooyiga iyo waliba dhaqdhaqaaqa gooni ugoosadka iyo kooxo dambiilayaal ah. toddobaadkii hore 7 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay bartamaha dalka Mali. bishii September jihaadiyiinta waxay weerar ku qaadeen dugsiga tababarka booliska waxayna xoog ku galeen garoonka diyaaradaha ee Bamako, waana weerarkii ugu horeeyay ee caasimadda Mali ka dhaca tan iyo 2016. maleeshiyada kooxaha xagjirka ayaa tan iyo markii ay isku fidiyeen wadamo kale oo ka tirsan gobolka saaxil ee koonfurta saxaraha waxay qabsadeen dhul waxayna dileen kumanaan qof halka malaayiin kalena ay barakiciyeen. garoonka diyaaradaha ee magaalada Kazan ee dalka Ruushka ayaa xalay dib loo furay kadib markii si kumeel gaar ah loo xiray Sabtidii shalay, markaasoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeymo ku weerareen, sida ay sheegtay hay-adda la socodka duulista hawada ee Ruushka. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa ku warantay in diyaaradaha droniska ay weerar ku qaadeen dhismo deegaan ah iyo goobo kale oo ku yaala Kazan oo qiyaastii 800 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Moscow. garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka kale ee ay Visky iyo waliba Saratov oo waqooyiga iyo koonfurta ka kala xiga magaalada Kazan ayaa sidoo kale si ku meel gaar ah loo joojiyay duulimaadyadii tegayay iyo kuwii ka bixi jiray, sida uu barta Telegramka ku sheegay ilaaliyaha duulista hawada ee Ruushka. weerarkan ayaa imaanaya iyadoo Jimcadii ay 10 diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay duqeeyeen ilaa 3 gobol oo Ukraine ah, markaasoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay inay adeegsan doonaan awood kastoo ay ku joojin karaan weerarada Ruushka uu meelaha fogfog ka soo qaado. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday 3 weerar oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah
nidaamkooda difaacana uu saddexdaba soo riday. ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. warbaahinta ruushka ayaa waxay sheegtay in iyaga oo soo xiganaya mas-uul deegaanka ah markaasi in weerarada si gaar ah loogu beegsanayay kaabayaasha muhimka ah. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka maria zakharova ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maria zakharova ayaa waxa ay sheegtay in Ukraine ay qaadayso caradeeda ku aadan guuldarooyinkii ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ruushka. dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in isku wadayaan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo ay soo wadeen tan iyo bartamihii sanadkii 2022 iyo in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah. hadalkan ayuu xasan sheekh maxamuud ka sheegay munaasabadii 81 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaysan ka mashquuli doonin oo ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab, doorashadana ay qabanayaan. wuxuu tilmaamay in muwaadiniinta ku nool deegaanada al-shabaab ay joogaan ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan, iyagana laga doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay uga dulqaadi lahaayeen. gacanna doorashadaan ku qabanaynaa waana ku codaynaynaa, gacanta kalena argagixisadaan kula diriraynaa. ma hakinayno, ma ka mashquulayno dagaalka aan kula jirna argagixisada oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay ku jiraan, shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan, booliiskuna ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida ay ku jiraan. hadaba waxyaabaha ay soo bandhigeen ee la dagaalanka argagixisada ku saabsan ay arkiiseen. sidaas daraadeed qof kastoo Soomaali ah waxaan rabnaa in uu gacmo badan u yeesho la dagaalankii argagixisada meesheedii iyo meel kasii xoog badan uu geeyo, laana dad shacab iyo dawlad baadanahay waxaana laga rabaa muwaadiniinta weli meelaha argagixisadu joogay xaqay u leeyihiin inay codeeyaan. sidaas daraadeed waa inaan ka dulqaadnaa dulinimada argagixisadu ay ku dulhayso si ay qalbi nadiifa oo dhiiran ay u helaan dadku ay ugu codeeyaan mustaqbalkooda iyo aayahooda. dalka doorashadu way ka dhacaysaa haddii alla yidhaah. 56 sano kadib muwaadinka Soomaaliyeed aayihiisa iyo masiirkiisa in gacantiisa ay ku soo noqoto hawl aad iyo aad u sahlan ama u dhib yar ma aha. hawshaasi waa hawl qaranka dhan iyo ummadda dhan iyo dawladda dhan ay u taagan tahay. dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ku wajahan qaabka ay doonayso inay dalka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah muddo ka badan 55 sano kadib ayaa waxaa si weyn uga hor yimid siyaasiyiinta mucaaradka. waxay sidoo kale isku khilaafeen maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka. laakiin iyadoo dhammaan arrimahaasi ay jiraan, haddana madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale si adag ugu celiyey in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba xukumi doonin madax aysan iyaga soo dooranin, taasoo laga dareemayay siduu ugu dhiiran yahay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. waxaan dadka Soomaaliyeed ka ballan qaadnay qof aanay dooranin inaanay xukumin, qof aanay dooranin oo si sax ah oo xor ah oo xalaal ah aanay ku dooranin inaanay xukumin. haddii shalay iska dhici jirta waxaasi waa asbaabaha ay dawladnimadeenu u baahi weysay ayay qayb ka tahay. laanna markaad codkaaga sanduuq ku riddo oo aad tiraa aniga cali aan u codeey ama caashaan u codeey aad tiraa, cali iyo caasho shaqada ay qabanayaan inaad la qabataan waajib kugu ah oo isku waajib yeeshay. laakiin nin la soo magacaabo maxaan ku raayay adeer cali sow iyo adeer jaamaca soo magacaaba la leeyahay markuu kuu yimaado haddee shaqadiisa qabsado waayo. warnimayahow shaqada ha layla qabto oo maanaga kuu dhiibana shaqada dadaa kuu dhiibtay aw dadkii kuu dhiibtay iyo wax lamida yaan soo marnay. maanta meesha idin kala dadka Soomaaliyeed ha ismahadiyeen, haddii ay taxadar fiican iyo dadaal fiican la imaan waayaanna ha is eedeen ayagu.
hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sanadkan qaaday tallaabooyin waaweyn oo la xiriira arrimaha doorashada dadweynaha kadib markii labada gole ee sharci dejinta ay ansixiyeen sharciyada doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashada oo ay u soo gudbisay xukuumadda waxna ay ka bedeleen 4 cutub oo ka mid ah dastuurka ku-meel gaarka iyadoo mucaaradkana ay markasta ka soo horjeedaan. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso ayaa ma ku hayaa xanuunka prostate-ka, kaadidu ma ku gubtaa, musqusha ma aadaa mar walba, ma dareentaa marmarka qaar inay kaadidii weli ku hayso markii aad musqusha ka soo baxdo, ma isleedahay weli kaadidii may kugu soo bargooday. haddaba kaadidii kuguma aysan bargooyin ee waxaa caalir iyo barar galay xanuunka qanjirkaaga prostate-ka. haddaba intaada stage 3 gaarin nala soo xiriir haddii kaadidu ku gubayso, haddii aad dareemaysa in ay kaadida markasta ku qabanayso musqusha aad ku diqaynayso, haddii hormoona baalansigaaga uu qaldan yahay, haddii ugxaamahaadu ay daciif yihiin, haddii aad xaajiyadaada waqti qurux badan la qaado weysay oo aad awoodi weyso awoodaadu ay yareeytay, haddii aad qabto xanuunka biyobaxa degdega ah nala soo xiriir si aan kaaga caawino. taleefankayga waa taleefanka shaashada saaran, meel kastoo joogta adduunka waad naga helaysaa. 168 wadan ayaan ka shaqeeyaa. taleefanka shaashada saaran igala soo tiyo kala duwan ka bixiyay hadalkii madaxweynaha Puntland uu ku shaaciyay in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. qaar ka mid ah dadka oo ay VOA la hadashay ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne Siciid Dani ee ah in Puntland ay samaysato lacag u gaar ah halka kuwa kalena ay taageereen. Siciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galayay furitaanka bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in Puntland ay go'aansatay dejinta qorshe ay ku samaysanayso lacagta cusub ee u gaarka ah oo uu tilmaamay inay mustaqbalka la jaanqaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee dalka. wuxuu ku dooday in tallaabadan lagu xoojinayo dhaqaalaha Puntland maadaama siduu yiri aan wax rajo ah laga qabin in la helo shilin Soomaali cusub. waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kala leh. macnaheedu ma aha Soomaalinimada inaan ka baxnay, laakiin waxaan rabaa Puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan. muddaan sugaynay in dawladda mid ah shilin Soomaali oo midaysan la sameeyo ma muuqdo. marka maanta go'aankaas ayaa dawladdu waayadan ka shaqaynaysay, daraasadeeda socota. waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta 2025 lagu jiro haddii Ilaahay idan ka dhigo in la helo lacag Puntland ay leedahay oo hadhow la jaanqaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya markii miyirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad Soomaaliyeed oo is ogoloo nidaam waaxid yeeshaan. marka arrintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo, shaqadii awoodeenna la dedejiyo. ku dhawaaqista Dani ee samaynta lacagta cusub ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Boosaaso oo la hadlay VOA-da ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii madaxweyne Siciid Dani uu ku sheegay in Puntland ay yeelanayso lacag u gaar ah inta uusan dhammaanin sanadka 2025. qaarkood ayaa ku dooday in samaynta lacagaha ay ka mid yihiin waxyaabaha u yaala dowladda dhexe ee aysan ahayn wax fudud in la hirgeliyo, halka qaar kalena ay si weyn u taageereen sida ay VOA-da u sheegeen. magacaygu waa qoyaan cabdimaan rugshaale artan jooga magaalada Boosaaso. runtii arrinkaas arrin hirgelaya ma ahan, arrin dee waxa weeye sida loogu talagalay ama dhabihii loo qaadi lahaana hadda la hayana ma ahan. waxaan filayaa dee waxa weeye arrimahaas hadday noqoto lacago iyo awooddaas waxaa leh dowlad dhexe oo waddanka ka talisaa jidha oo waxa weeye iyada ku shaqo leh howlahaas iyadoo soo maraya. waxaan filayaa dee inaysan waqtigan la joogo inaysan waxa weeye maaragtay hirgeli karin, sababtoo haddii shilin Soomaali shaqaynayo tii horaa si fudud noo dhaafto la ogaayo. haddii si fudud wax loo samaysanayo cid walba u samaysan lahayd, tii horaa la xifdilin lahaa oo waxa weeye maaragtay la adkaysan lahaa howlaheeda. magacaygu waa Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. haddii aan aragtidayda ka dhiibto hadalkii uu jeediyey madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Dani
oo ahaa puntland inay ka fikirayso inay samaysato lacag iyadu ay leedahay waa soo dhoweynayaa. weliba madaxweynuhu wuxuu yidhi 2025 intayan dhammaan baa lacagtaas howlaheeda lasoo gebagabeynayaa. waa war fiican oo aad loogu riyaaqay weeye. waxaa laga rabay shaqadaas iyo hawshaas inay qabato dowladda federaalka ah, maadaama dowladnimadii iyo federalismkii hawshiisa aan heshiis lagu ahayn. puntland in ay shacabkeeda u samayso lacag kaasha, haddii ilaahay ku rooyahay ay ku dhiirato waa soo dhoweynayaa, 100% baan usoo dhoweynayaa. magacaygu waa Tolmoon. dowladda Puntland waxay bilowday daraasaad sameyn lacag u gaar ah Puntland sida wadamada adduunka qaar ay u leeyihiin lacaga u gaar ah. waxaan rajeynayaa dowladda Puntland lacagtaas inay u sameyso shacabka oo uga bixi doonaan baahiyo badan ee maanta ku xeeran. mustaqbalkana lacagtaas ay la jaan qaadi doonto nidaamka maaliyadeed ee ka jira adduunka ama wadanka iyaga. marka waxaan u rajeynayaa dowladda Puntland inay lacagtaas ay sameyn doonto kuna guuleysan doonto insha Allah. waana farxad gaar ah oo soo hooyatay dhammaan shacabweynaha reer Puntland inay yeeshaan lacag ayaga khaas u ah oo gaar u ah oo shilin Soomaaligoodii ah. arrimaha baasaboorka iyo lacag sameynta iyo arrimaha dibadda waa shaqo gaar u ah dowladda dhexe. laakiin haddii dooda aan halkaa kusoo xirno madaxweyne Siciid waqtiga iyo dhaqaalaha uu ku bixinayo lacag cusub in la sameeyo, anigu waxaan soo jeedin lahaa in lacagtii horeeto ee meesha ka baxday oo dhalishadan ay runtii dowladdu leedahay dadaalka iyo dhaqaalaha tan lagu bixinayo lagu bixiyo sidii loo soo celin lahaa lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo madaxweynuhu dhalisheeda koowaad iyo labaad ba isagu u leeyahay in lacagtii uu ugu yimi Puntland oo shaqeynaysay ee meesha ka baxdo. runtii in lacag cusub la sameeyo runtii waa hawl aan sahlanan oo u baahan dhaqaale, waqti iyo taxadar dheeraada. arrin suurta gelin karta waaye in deegaankan haddaba dhaqaalihiisu uu burburka xoogan ka muuqdo uu runtii uu burburo oo dhaqaale ahaan oo crisis dhaqaale uu runtii uu galo, sixir barar inuu sababo, iyo Puntland oo haddaba la dhaca dhaqaale dartiis. marka runtii waa nasiib daro in madaxweynaha iyo tiimkiisa maaliyaddu ay waqtigan iyo bankigu ay ka fikirayaan in lacag cusub sameeyaan. lacagta shilin Soomaaliga oo kunka guduudan uu ugu weyn yahay ayaa aad u duugowday sanadihii u dambeeyey, iyadoo aysan jirin wax dib u habeyn ah oo lagu sameeyey ama lacago cusub oo la daabacay oo dalka ka shaqaynaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii militariga sanadkii 1991. magaalada Boosaaso waxaa sanadihii u dambeeyey kusoo kordhayay dhalinyaro ku shaqaysata xirfadda samaynta alaabta guryaha, kuwaasoo soo saara naqshado kala duwan oo u dhigma alaabta dibadda looga soo dhoofiyo. dhalinyarada ayaa sheegay in nooc kastoo jiifafka iyo fadhiyada guryaha ee dibadda looga soo dhoofiyo ay iyagana dib u sameeyaan xirfaddaasoo shaqooyin ay ku abuurteen. wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay injineer Cabdalla Maxamed Saalim oo ka mid ah dhalinyarada xirfadleyda ee farsamada gacanta ku shaqaysata. waxaana ka shaqaysanaa farsamada gacanta ah, faryaamada, aqladoo ah kuwa aan koobiyeyno, kuwa Turkiga, Maleesiyaanka iyo Shiineeska. aqlada farsamada nashqadaha kuwaasaan ka koobiyeysana maasha Allah. waxaan ku shaqaysanaa xifladeena, laakiin shacabka Puntland looma arkaan oo farsamadeena ma qiimeeyaan. waxay qiimeeyaan aqladaas dibadda laga keeno. anigana meeshii baa macnaha hool iyo mashquul iyo aan ku galnay iyo dhiirigelinta aad iyo aad baan ugu yartaa ku lidanaa. marka waxaan jeclaan lahaa shacabkeena reer Puntland inay nagu dhiirigeliyaan, farsamadeena ay nagu tixgeliyaan oo iyo aqoonteena iyo xifladeena sidaan dadka dibadda ah aqlada ay keenaan sidaan ay ugu marmaan. bal marka la isbarbardhigo aqlada samaysaan jiifka guryaha iyo kuwa dibadda ka yimaada, dadku kuweeba aad u jecel yihiin iibsadaan? wallahi run ahaantii kuwa dibadda aad u jecel yihiin, waayo maxaa yeelay ayagoo dibadda ay ku jecel yihiin haddana dhibaato iyo khasaare ayay ku qabaan, waayo dadka kiroole ay u badan yihiin. waa mashruuc furfuristiisa
iyo gaari raristiis iyo waxaasaba qarash ku ah laakiin intaas ma dareemayaano waxay arkaan intaas aqalka weynaantaas ahaan haddii laakiin aniga dhiirgelintaas iyo waxaas aan ku heli lahayn taas iyo wax ka qurux badan hayna ka iibsan lahaayeen oo dhiirgelin aan ku heli lahayn taas iyo mid ka weyn iyo mid ka qurux badan oo haddana kuwaaltooda aad siyaado u fiican oo aqal fufuris ay waxaasna u galeenin oo kiroolan isku dhibeenin oo caadi alaabtooda gaari laba xamaal ay soo ka xistaan ay saaran karaan wax fufuris wax qarashaysa gali maayaan aqalkan aqalka ay raadinayaan turku jibiska ah waan u heleynaa insha Allah maxay ku kala duwan yihiin marka kuwa dibadda laga keeno iyo kuwa ay ku farsamaysaan wallahi waxay ku kala duwan yihiin mala quality ahna hadii la fiiriyo kuweena ka adag waayo maxaa yeelay aad baan anaga aan u adkeena